عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابta sharafta leh ee ku xiran Somali Business barnaamijkeena maanta waxaan uga hadli doonaa caabuqa loo yaqaano coronavirus kaasoo markii hore kasoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha kadibna ku faafay dunida oo dhan. Marka koowaad waxyaabaha ilma aragtada asxaabta waxaan u qaybinaynaa bacteria, fungi, virus iyo kudul noole. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa viruska. Viruska waa shay ilma aragta ah oo u dhexeeya nolol iyo nolol la'aan. Dadka qaar ayaa yiraahda waa dhammaadka nolosha. Marka aan leenahay waa shay nool, waxaan ka hadlaynaa qaabka ay unugyadiisu u samaysan yihiin. Marka aan leenahay waa noole, waxaan ka hadlaynaa habka uu ugu bato si dhaqso ah. Markii u horreysay ee la helo virus waxay ahayd sanadkii 1892. Waa muddo laga joogo ku dhowaad 150 sano. Viruska waxay weerar ku qaadaan unugyada jirkaada kadibna isla unugyadaada ay u isticmaalayaan inay ka dhigtaan warshada DNA-da samaysa. Jirka in laga difaaco viruska waxaa ku shuqul leh unugyada dhiigga cadcad. Viruska waxaa loo qaybiyaa mid ku dhaca hidda-sidaha jirka ama waxa loo yaqaano DNA-da iyo mid ku dhaco RNA-da. Coronavirus wuxuu ku dhacaa RNA qaab fudud oo aad ku hilmaamin corona waxaa ku jira R, RNA waxaa ku jira R. Marka viruska waxaan qaybinay kuwa ku dhaco DNA-da iyo kuwa ku dhaco RNA-da. Waxay u baahan tahay cilmi fara badan. Ardayga caafimaadka ayaa looga baahan yahay inuu sameeyo cilmi baaris badan. Marka kuwa DNA-da ku dhaco waa 7 box habis habadana bab polyadena. Saddexda kore waxay leeyihiin xub. Afarta virus hoosena waxay leeyihiin malahan wax xub ah. Virusyada ku dhaco RNA-da waa 15 toga falavi retro corona delta arena bunia philo rhabdo ormax baramax picona kelax hebrio. Kuwa hoose malahan wax xub ah. Inta kore dhanna waxay leeyihiin xub. Viruska Zika wuxuu hoos tagaa falavi oo taasoo ah RNA. Ebola wuxuu hoos tagaa philo ayadana RNA. Corona oo kala ah common cold hemorrhagibka caadiga. SARS Middle East Respiratory Syndrome iyo midka hadda ugu dambeeya ah COVID-19 ama coronavirus. Corona viridae. Viridae waa pluralka ama jamca virus. asxaabta Marka coronavirus wuxuu hoos imaadaa RNA, wuxuu ku dhacaa RNA-da. Calaamadiisa ama astaantiisa waa positive. Wuxuu leeyahay hal xariiq oo toosan qaabka unugyadiisa ay u samaysan yihiin. Unugyadiisa marka waxay leeyihiin xub oo ku gadaaman. Dad badan ayaa u maleeya coronavirus in sanadkii 2019 uu soo baxay. Coronavirus oo ah virusyo fara badan ayaa kuwoodii ugu horreeyay waxaa la helay sanadkii 1960kii waxaana loo yaqaanaa 229E iyo OC43. Sanadkii 2003 waxaa soo baxay SARS Severe Acute Respiratory Syndrome oo ah cudur ku dhaca neef mareenka. 2004 waxaa soo baxay HCoV ama Human Coronavirus NL63. Sanadkii 2005 waxaa soo baxay HKU1 ama Hong Kong. Sanadkii 2012 waxaa soo baxay MERS Middle East Respiratory Syndrome oo ah cudur ka soo baxay wadamada bariga dhexe. Iyo kan ugu dambeeyay oo loo yaqaano COVID-19 ama hadda waxa ku caan baxay coronavirus. Labada u horeysa 229E iyo OC43 waxay sababaan common cold ama hergabka iska caadiga. Kan ku xiga SARS Severe Acute Respiratory Syndrome wuxuu sababaa neef mareenka cudur ku dhaca waaye. Bronchitis iyo kan kala sababa HCoV. HKU asagana wuxuu sababaa respiratory oo waxyaalo oo neef mareenka ku dhaco. MERS asaga oo ah Middle East Respiratory Syndrome asagana wuxuu sababaa hergab ama neef mareenka cudur ku dhaco. Iyo COVID-19 oo asna isla sidoo kale waa cudur ku dhacaya neef mareenka. Markaad fiiriso cuduradan oo dhan dhammaantood waxay ku dhacayaan neef mareenka ama habdhiska neefta. Marka su'aashu waxay tahay sidee baan uga hortagi karnaa? Badanaa waxaa la yiraahdaa ka hortag ayaa ka wanaagsan iska daweynta. Haddii aan rabno inaan ka hortagno waa inaan gacmo mar walba saabuun aan ku dhaqno, waa inaan kala fogaano, waa inaan maaska xiranno iyo dhammaan shuruucda inaan raacno. Coronavirus ama COVID-19 oo ah magaca ay u bixisay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa markiisii ugu horreysay waxa uu kasoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
Waxa sababay ilaa hadda lama garanayo, laakiin saynis yahanada qaar ayaa aaminsan in laga soo qaaday cunitaanka bahasha loo yaqaano fiidmeerta iyo masaska. Marka calaamadaha lagu garto ayaa ah qandho, qufac qallalan, naqaska oo kugu xirma ayaa lagu gartaa. Marka cudurkan ayaa aafo weyn u geystay adduunka. Dhaqaalihi adduunka dhan baa hoos u dhacay. Markaan ka hadalno wadamada uu ku dhacay, waxaa hogaaminaya wadanka Mareykanka oo dadka uu ku dhacay ay ka badan yihiin nus milyan. Dhimashada marka la dhaho isla dalka Mareykanka ayaa hogaaminaya oo dad gaaraya 22,000 ayaa hadda u dhintay. Wadamada kale oo sida xun u aafay waxaa ka mid ah Talyaaniga, isagana ku dhawaad 20,000 ayaa dhimatay. Spain sidoo kale ku dhawaad 18,000. Ingiriiska 10,000 ay dhimashada kor u dhaaftay. Iiraan 4,000 bay dhimashada maraysaa. Iyo dalka Shiinaha oo wadamada reer galbeedka ay ku eedeynayaan inuu tirada hoos u dhigay, isagana dhimashada waxay maraysaa 3,000. Guud ahaan dadka uu ku dhacay waxay ku dhow yihiin 2 milyan oo qof. Inta u dhimatay waxay kor u dhaafaysaa 100,000. Inta ka bogsatay oo xanuunka fiicnaatay waxay ku dhow yihiin 400,000. Markii laga hadlayo cudurkan ilaa hadda wax daawo ah oo loo soo saaray ma jirto. Tirada dhimashada markaan fiirino, dadka ugu badan ee u dhimanaya xanuunkan waa dadka waayeelka ah. Sababta loo aaneynayo ayaa ah in difaaca jirkooda uu aad u hooseeyo darteed. Dhammaanteen waan xasuusanaa markii uu ka dilaacay cudurka Ebola qaaradda Afrika, gaar ahaan wadanka Congo. Madaxweyne Obama ayaa loogu baaqay inuu mamnuuco duulimaadyada wax walba oo dhan. Hadda sidoo kale wadamo badan ayaa joojiyay duulimaadyadii, taasoo ka hortagtay fiditaanka cudurka. Dad badan oo waxaa jira oo cudurka qabo uu jirkooda ku jiro oo handala faafinayo, laakiin aanan dareemeyn calaamadaha. Xigmadda maanta ayaa ah waxaa jira cudurro badan oo laga badbaadiyay. Waan ognahay Ebola inuu yahay cudur aad u xun, laakiin yaan hilmaamin waxaa jira cudurro kale oo dad aad u tiro badan adduunka ku dilo. Marka hadda meesha Ebola aan ku bedelno Corona oo aan aragnay sida looga badbaadiyay. Corona waa cudur saas u xun, handala waxaa jira cudurro kale oo ka sii xun oo dad fara badan dilay. Marka si aan isaga ilaalino cudurkan, waa inaan gacmaha naga dhaqno, waa inaan afka naga daboolno, waa inaan dadka kale ka dheeraano. Haddii aad xanuunsan tahay ama wax cajis ah isku aragto oo calaamadaha isku aragto, waa inaad daawo raadsato, waa inaad ka dheeraato xayawaanada duurjoogta ah. Sidoo kale waa inaad iska ilaaliso cunitaanka hilibka iyo waxyaalaha kale ee cayriinka ah ee xayawaanada. Marka guud ahaan haddii aad isku aragto calaamadaha Corona, fadlan waxaa laga codsanayaa inaad si dhaqso ah ula xiriirto dhaqaatiirta caafimaadka. Guud ahaan halkaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii aan uga hadlaynay cudurka Corona. Waxaan rajeynayaa in barnaamijka wax badan aad ka faa'iideen. Fadlan mar walba ku xirnaada Somali Business.